بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بأماتسن أو مدن مركزتا إذا كنت بنوحن مهد إلينا يعني إذن كهذا يداونيا أنت يداون دونتا سببتنا أي وقتها أي أهورين إن أي مارتي داودان مقال كان أنت كدب waxaan doonayaa caawa inaan idin la wadaago haddii ilaahay yiraahdo daqiiqadaha soo socda mowduuc ka hadlaya fahankeena dowladnimada ama habdhaqankeena dowladnimada. Inta badan dadka Soomaalida ah waxa ay ka hadlaan ama waxa ay xiiseeyaan ama waxa ay u hanqal taagaan inta badanba waa dowladnimada iyo siyaasadda. Marka sharaxaad badan igama baahna inaan dowladnimadu waxa ay tahay aan sharaxo. Wax badan baad maqasheen iyadoo la sharaxayo. Haddii aan marka iska soo gaabsado, dowladnimadu waxa weeyaan waa dal leh xad la yaqaano oo bad iyo bariba leh, isla markaasna leh astaan iyo calan lagu garanayo, leh dastuur iyo nidaam dowladnimo, leh xukuumad iyo madax. intaas waa isla garanaynaa inay dowladnimo tahay. Marka dowlad hebla iyo dowlad hebla waxyaabaha lagu kala garto dee waa inahaas weeye. dowlad hebla waxay degan tahay halkaas, dhulkeedu waa halkaas, xadkeedu waa halkaas oo dalalkaas ay xad la leedahay ama xuduud. calankeeduna wakaa nooca loo maaragtay iyagu leeyihiin. madaxdeedana waa madaxdaas la yaqaan oo dalkaas hadba u talisa. si guud markii dowladnimada looga hadlo, dastuurkooda iyo nidaamkooda dowladeedna waa halkiisa. intaa kadib qodobo dhowr ayaan rabaa inaan isdul taago anoo markaa barbar dhigaya habka aynu u dhaqanno iyo qodobadaas inaan isku egno. marka si ay noogu soo baxdo dhaqankeenu muwaafaqsan yahay dowladnimada muwaafaqsan yahay mise muwaafaqsana. dowladnimadu waxa weeyaan dalka ay dowladdaasi ka taliso, dadka ku nool waxay u siman yihiin. haddii si kale aan u iraahdo, dowladnimada ma jirto cid iyada gaar u leh, ma jirto. dadkuna ma laha si gaara. madaxda markaa xukumaysana ma laha si gaara. koox gaar u leh dowladnimada ma jirto. waxay ka dhexaysaa dadka halkaa degan ee dowladnimadaas dhistay. haddii aynu xoogaa yar dib u laabanno, dalka Soomaaliya waxa uu madax banaanidiisa qaatay oo dowlad la yaqaano uu noqday 60kii. sidaad la wada socotaan, marar badanna aan horay wax uga nigi. markaas ayuu wuxuu yeeshay nidaam la yaqaan, madax la yaqaan, oo noqday dal la yaqaan. intii ka horreysay dalka Soomaaliyeed dhulkaas ay degan yihiin waa deganaayeen maamullo iyo saldanado ku dhisnaa hab deegaan ama hab qabiil bay lahaan jireen, iyo boqortooyooyin sidaasoo kale deegaanada qaarkood ka jiray. laakiin nidaam dowladeed oo la yaqaan ama dowladnimada casriga hadda ee adduunka ku dhaqmo waxa ay yeesheen sanadkii 1960kii. marka dowladnimadu ma aha wax cid ay gaar u leedahay, wax koox ay gaar u leedahay, wax qof uu gaar u leeyahay ma aha. dadka xukumana way isbedelaan. sida dalka Soomaaliya
60kii sano ee lasoo dhaafay ay xukuumaduhu iyo madaxdu ay isu bedbedelayeen. siyaabo kala duwan ba ha ku yimaadeen, laakiin dowladnimada Soomaaliya waxay ahayd mid jirta 60kaas sano. waxaa la isweydiin karaa 91dii markii dowladnimadii Soomaaliya xukuumaddii ay meesha ka baxday ciidanku hogaaminayeen ilaa 2010kaas sano xukuumad la aqoonsan yahay dalka kama jirin, laakiin dalku dowlad waa ahaa, sababtoo ah wuxuu lahaa xad aan lagu soo xadgudbi karin. dalka Soomaaliyana halkaa uu ku yaallo ayaa dunidu u aqoonsanad inuu ku yaallo. midnimadiisana waxay ahayd mid sidaa adduunku u aqoonsan yahay ama dunidu u aqoonsan tahay. marka waxaa ka maqnayd qayb ka mid ah oo ah xukuumaddii, sababtoo dadkii waa joogeen, dalku halkiisii buu ahaa, laakiin waxaa ka maqnayd nidaamkii iyo xukuumaddii waa ka maqnayd. sidaa daraaddeed 60kaas sano oo laga soo bilaabayo 1960kii ilaa iyo haatan dowladnimadu waa socotay, xukuumadaha ayaa isbebedelayay. marka halkaa waxaynu ka garanaynaa haddii dee qof ama xukuumad gaara ama sidaas oo kale koox gaara ay dowladnimada leedahay, dee iyada weligeed iska joogi lahayd. marka taas aan halkaa ku dhaafo. intaanan taa ka gudbin waxaan rabaa inaa idhaahdo, maadaama ay sidaas tahay oo koox gaara ama cid gaara ama shakhsi gaara ama group gaara uusan dowladnimada lahayn, habdhaqankeenna Soomaali ahaan halkaa waxaa ku jirta sidaas inayna anagu fahansanayn. oo kooxda markaa talada joogta markasta ma aha hal koox, in badan oo ka mid ay u arkayaan in dowladnimada marka laga hadlayo iyagu yihiin, iyagu waa ka mid, laakiin keligood ma aha. sidoo kalena dadka caadiga ah ee shacabka ah ee dowladnimadaas ku hoos nool ama dadka la xukumo, iyaguna waxay u arkaan dowladnimada in dadka xukunka haya markaa ay leeyihiin. waxaa taas tusaale kuuga ah, tusaale ahaan sanadkii 1991kii markii xukuumaddii markaa jirtay oo 21 sano waddanka soo xukumaysay ay meesha ka baxday, sababtuna ay ahayd jabhado waqtiyo kala duwan la aas-aasay oo kala dambeeyey ay markii dambe xukunka ka tuureen. ayaa waxaa dhacday in dadkii Soomaaliyeed ay meelihii danaha guud lagu qabanayay oo ay ka mid ahaayeen bangiyadii, xafiisyadii dowladda, wasaaradihii, xerooyinkii ciidanka, wixii oo dhan, wixii dan caam ahaa ama dan guud ee dalka ka jirtay ee dowladduna ku adeegaysay. ileen dowladnimada ayaa maaragtay arrimahaas oo dhan ay hoos imaanayaan. ayaa waxaa dhacday markii xukuumaddii ay meesha ka baxday ama madaxdii ay meesha ka baxeen, ayaa dadkii Soomaaliyeed ee caadiga ah waxay ku yaaceen meelihii danta guud lagu qabanayo oo dhan. kadibna waxaa dhacay inay billaqaysteen ilaa ay gaartay heer dugsiyadii waxbarashada, jaamacadihii, dhammaan kulli waa la galay. marka halkaa waxaa ka garanaysaa fahanka dowladnimada aynu ka fahansannahay inay tahay dowladnimada waxaa iska leh dadka xukuumadda markaa haya. saxna ma aha, xukuumaddu way tegi kartaa, siyaabo kala duwan bay ku tegi kartaa. doorashay ku tegi kartaa oo doorasho inta lagaga adkaado bay saa ku bixi kartaa. ciddii markaa booska timaada ayaa bedelaysa. shaqadii dowladnimadan waa inay halkeeda kasii socotaa. meelihii shaqooyinka dowladda lagu qabanayay oo dhanna
waa inay sidoodii ahaadaan. waxay ku tegi kartaa sidaas oo kale si aan sax ahayn oo sharci ahayn sida tii 91 ee ku tagtay oo kale. laakiin markay saa dhacdo waxaa la rabaa dadku inay ilaaliyaan dee meelihii danta guud lagu qabanayay, sida ka dhacday Ethiopia oo kale. Ethiopia 91dii ayaa sidaas oo kale xukuumaddii markaa jirtay ee meesha ka baxday oo jabhado ay qabsadeen. laakiin jabhaduhu waxay ilaaliyeen nidaamkii dowladnimo, dalkuna ma dumin. waxaa isbedeshay un xukuumaddii horaa meesha ka baxday ee Mengistu Haile Mariam uu madaxda ka ahaa. xukuumad cusub bay samaysteen dadkii, nidaamkii dowladnimona sidiisii ayuu ugu jiray, dalku marka burbur ma gelin. laakiin Soomaaliya waxaa ku dhacay xukuumaddii markay meesha ka baxday wixii danguud ee meesha ka jiray, wixii dowladnimo ahaa aas-aaskeedii oo dhan waa la xaaqay, meesha ka baxday. marka miyaynan dowladnimadu u fahansaneyn wax ay kooxda markaa xukunka joogta ay leeyihiin? dabcan haa, waynu aragnay tusaalaheedii. sababtoo ah iskuulka adugu aad wax ku baratay ama ubadkaagu ku baranayaan markaas, iyo jaamacadda iyo wasaaradda laydinku shaqaynayo, tusaalehaan wasaaradda caafimaadka, wasaaradda waxbarashada, wasaaradda arrimaha bulshada, wasaaradda sportska, yaa leh? ma ninka markaa madaxweynahabaa iskale, mase waxa weeye waa adeeg bulsho meel lagu hayo wey? haddii marka aynu u fahansannahay dowladnimada inaynu leenahay oo dadkoo dhan ay ka dhaxayso, dee maynan billaqaysaneyn goobaha caamka ah ee adeega dowladnimada lagu qabanayo, looguna qabanayo bulshada, maynan billaqaysaneyn. dhanka kale imow, inta badan dadka markaa xukunka haya ee laftigooda waxay muujiyaan dowladnimadu inay tahay iyaga. tusaale ahaan haddii la mucaarado madaxda markaa joogta oo iyaga nidaamka ay wax u wadaan iyo habka ay wax u wadaan la dhaliilo, iyaguna waxay ka soo qaadayaan waxa la dhaliilayo inay tahay dowladnimadii, waxa meesha laga saarayo inay tahay qarannimadii. saas ayay u dhigayaan. marka iyaduna sax maaha. adiguna haddii aad madax tahay dowladnimada adigu ma tihid, dadkuna ma aha in ay adiga kuula dagaalamaan ama kuu mucaaradaan si shaksi ah. sidaas sax maaha. waxaa la mucaaradi karaa nidaamka marka ay wax ku socdaan, waa la dhaliili karaa, waa la mucaaradi karaa. isla markaasna dadkuna waa in aysan dowladnimadoodii aysan maaragtay burburinin oo meesha ka saarin, oo hab aan sharci ahayn aysan u adeegsanin. dadka laftigooda markaa xukunka hayana waa in aysan awoodda dowladnimo u adeegsanin shakhsiyadooda ama kooxdooda. intaas haddii aan qodobka ku dhaafo, waxaa qodob kale ah oo aan rabaa inaan isna ka hadlo. dowladnimada waxaynu u aragnaa dad ahaan dadka Soomaaliyeed intooda badan in ay tahay fursad markaa lagu shaqaysto ayaynu dowladnimadii ka dhignay, halka dowladnimadu aysan sidaa ahayn oo ay tahay dowlad u adeegaysa bulsho markaa iyagu ay doorteen, bulsho dooratay, oo ama ay xukumayaan markaas. nidaam noocaasi way dowladnimadu, laakiin ma aha fursad lagu shaqaysto.
dadkeenu marka sidaas ayay u fahansan yihiin fursad lagu shaqaysto inay tahay. waxaadna ka garanaysaa marka la dhisayo dowladnimada ama marka xukuumad la sameynayo habka loo qaybsanayo. waxaa dhacaysa in hadda waxaynu wax ku qaybsanaa nidaamka la yiraahdo 4.5 ama 5 beelood hadba sidii loo dhaho. marka nidaamka noocaas ah waxa weeye beeluhu kuraas isku mid ah ayay waxay ku leeyihiin dowladda marka laga reebo hal beel ama 0.5 ay yiraahdeen 5. afarta kale si siman ayay kuraasta dowladda u qaybsadaan. kuraastaas ay qaybsanayaan waxay kala leedahay heerar kala duwan. heerka koowaad tusaale ahaan wasaarada ayaa ah oo waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda, waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha, maaliyadda iyo gaashaandhigga. kuwa kale waa kusoo xigaan. nidaamka anagu aynu wax u qaybsanno iyo habka aynu u aragno dowladnimada. marka wasaaradaha noocaasa marka la qaybsanayo dee beeluhu 4 marka la yiraahdo beel kasta iyo ama 5 aan yiraahno 5 beelood beel kasta gudaheeda marka la galo dee beelaha sii kala ah, jilibiyaa sii kala ah, hoos bay u soconaysaa ilaan qabiil kuma dhammaanayo ilaa ay gaarto dee meesha ugu hooseysa. sidaa daraaddeed arrintaasi waxay keenaysaa marka in jifooyinku ay isku qabsadaan yaa qaadanaya kursiga. tusaalahaan beeshiinu kursi bay heshay, kursigaas yaa qaadanayo haddana waa la isku qabsanayaa. waxaan xasuustaa ayaan la qaybsanayay sidaas oo kale kuraas dowlad markaa la dhisay, dowladihii soo maray 20 sano hadda ugu dambeeyay dalka, dowlad ka mid ayaa kuraasteeda la dhisay. marka waxaan garanayaa dee dowladda qof baa madaxweyne ka ah. marka ninka madaxweynaha beeshiisa ayaa waxa u yimid nin ka mid ah, ninka madaxweynaha beeshiisa nin ka mid ah ayaa waxa u yimid nin kale. marka sida caadada waad iska garanaysaan Soomaalidu ninka madaxweynaha beeshiisa oo dhan madaxweynaha la yiraahdaa, iyadoo oo la leeyahay macnaha waxaa haysataan jagadii madaxweynenimada. marka inbaa u yimid kale waxa uu ku yiri waadna qadiseen. wuxuu yiri saydeen qadin. wuxuu yiri waxaadna siiseen wasaaradda boostada isgaarsiinta. wasaaradda boostada isgaarsiinta hadda ma shaqayso. wadankii waxaa ka jira shirkado isgaarsiineed oo fara badan, bangiyaa jira. sidaa daraaddeed boosto iyo isgaarsiin shaqo hadda ay dowlad u qabato ma jirto. sidaa daraaddeed maxaan ka helaynaa buu yiri, wasaaradihii nafciga lahaa waxba naga meedan siinin, maxaan helaynaa marka. wuxuu u fakirsan yahay oo u fakerayaa dowladnimadu inay tahay wax la quuto oo fursad maaragtay wax lagu cuno inay tahay dowladnimadu. marka inkii kale waa uu cudur daartay, wuxuu sheegay wasaaradaha inay isagu de ma aha xitaa madaxweynihii ma aha, oo qofkii wasiiradan magacaabay ra'iisul wasaare ahaa ma aha. laakiin waa nidaamkaynu u fikirsanaa. dowladda waxaa leh qofka madaxweynaha ka ah iyo ra'iisul wasaaraha reerahooda iskale, sida aynu u fahansanaa waana khalad. marka isagii baa cudur daaranaya. oo muxuu ka cudur daartaa? wax uma haya isagu, waa shakhsi caadiya. wuxuu ka cudur daaranaya, wuxuu leeyahay madaxweynuhu waxa uu beelaha u magacaabay beel hebel saas, beel hebel kuraastaas u siiyey, sidaa daraaddeed wixii ma qaybsami karaan. marka beeshiina reer hebela ayaa idin qaaday kursigii fiicnaha ayuu leeyahay. marka dowladnimadu ma aha fursad lagu shaqaysto, fursad wax lagu cuno ma aha. waxa weeye waa nidaam dowladeed oo dadka u wada adeega, oo dalka u wada adeega. tusaale kale, dadku marka waa qodob hadda ii soo socda. dowladnimadu
waxna waxa weeyaan qofka muwaadinka ah wax lagu leeyahay oo dowladnimadu ay ku leedahay oo waajibaad baa la yidhaahdaa. waxna waxa weeye xuquuq isagu uu dowladda ku leeyahay oo uu maaragtay mudan yahay in dowladdu ay u qabato. waajibaadka asaga laga rabo waxaa ka mid ah dowladdu dee wixii ay ku socon lahayd oo canshuurtii ah inuu baasho. waxaa ka mid ah inuu nabadgelyadii dowladda kala shaqeeyo. waxaa ka mid ah dowladda inuusan cadow u soo raacin ama dal kale oo danaha dowladdaasi ka soo horjeeda inuusan u shaqaynin, inuusan dalkiisa sirdoon uga noqonin dalal kale. waxyaabaha noocaasa waa waajibaadka asaga laga rabo. xuquuq buu leeyahay qofku ama dadku ay leeyihiin oo ah in dowladdu ay siiso adeeg caafimaad, adeeg waxbarasho, jidad, biyo iyo wixii la mida. sidaa daraaddeed dadkeennu marka la yidhaahdo maxaa dowladnimada ka rabtaa, waxay ka cawdaan inta badan waa aragteen. waxa weeye beeshayadu kuma laha saami, kuma laha dowladda kuma laha saami. saamiga aan leenahay waa saami yar, uma qalanno, wax noocaas ka hadlaan. laakiin inta badan ma arkaysid ama waa wax aad u yar dad ka hadlaya tuuladeenna ama degmadeenna jidad ma laha, degmadeennu isbitaal ma laha, degmadeennu ma laha adeeg waxbarasho oo fiican, degmadeennu ma laha caafimaad ma laha iyo isbitaal. waxyaabaha noocaasa ka hadlimayaan dadku inta badan, waana adeegii dowladda ay ku lahaayeen. marka wixiiba waxay noqotay wax qof dandiis looga fakerayo. qofka adiga hadda kula beesha marka la magacaabo dee danihiisu hadiiba dowladda uu mushaar ka qaato ama haddii uu wax kala soo jafjafto waa wax isaga iyo inta ka agdhow ay cunayaan weye. dowladnimaduna sidaas ma aha, sidaasna sax ma aha. marka waxay ku tusinaysaa sida aynu u fahansannahay dowladda oo ah fursad lagu shaqaysto inaysan ahayn. sida qodobka kale ee dowladnimada aynu ka fahansannahay waxa weeye dowladnimadii inaynu u fahanno qof inaynu u fahanno oo macnaheedu yahay waxa aan taageerayno inuu qof noqdo, waxa aan diidannahayna inuu qof noqdo. sidaas sax ma aha. waana sida hadda dadkeenna ay u dhaqmaan. waxa ay taageerayaan waa qof baa loo bannaan baxayaa, qof baa maaragtay loo heesayaa. sidaas oo kale qof baa la iska jeclaanaya, ama dhinaca kale qof baa la nacayaa, shakhsiyadiisa wax laga sheegayaa, isaga duulaan lagu yahay. labadaba saxna maaha. waxaa la rabaa cidda wax mucaaradaysa inay mucaarado siyaasad ay taaban karto waxa ay ku khaldanta. waxaasaa khaldan, adeegaasaan la fulin, ballanqaadkaasaan la qaban, waxaasaa halkaa ka qalloocan. intaasaa la rabaa in laga hadlo oo lagu mucaarado, kadibna xalkana la sheego la yidhaahdo sidaa iyo sidaa iyo sidaas ayaa sidii fiicnayd ah, sida dastuurkeennu qabay ah, sida aynu ku heshiinay ah. sidaasaa la rabaa in la yidhaahdo. laakiin maanta oo dhan qof in laga hadlo oo la mucaarado sax ma ah. sidoo kale in dowladnimadii qof laga dhigo oo maaragtay qof loo masharado, qof la iska jeclaado, qof durbaanka laga daba tumo oo sidaana sax ma aha. waxa waa in laga hadlaa nidaam iyo system jira, kaa la difaaco, kaa la dhaliilo ciddii dhaliilaysa, iyadoo waxay ku dhaliilayso ay yihiin wax la taaban karo oo la arki karo oo maaragtay xitaa qofka taageersan laftigiisa uu fahmi karo marka loo sheego. ujeeddada guudna ay tahay
dowladnimadaas inay jirto oo waarto oo xoogaysato oo maaragtay ay horumarto. laakiin haddii qof lagu wareego labada dhinacba, kuwa wax mucaaradana ay qof mucaaradsan yihiin, kuwa wax taageersanna ay qof taageersan yihiin, aysan dowladnimo waxba ka garanayn, haddii waxa ina haysto kale ayaa imaanaya. qodobkaasna aynu halkaa kaga gudubno. waxaa iyadana khalal fara badan iyo isku dhexyaac oo ka jira. dowladdu waa xukuumad, waa baarlamaan, waa gole garsoor, shaqaale dowladeed bay leedahay, askar bay leedahay, diblomaasiyiin bay leedahay, dowladaha dibadaha u jooga oo dunidao dhan dowladda wakiil uga ah. sidaa daraaddeed dowladdu ma aha hal hay-ad, ma aha, waa hay-ado badan oo nidaam ku shaqaynaya wey. sidaa daraaddeed ma aha hal qof, laba qofna ma aha, saddex qofna ma aha. dowladda dadkaasoo dhan ayay dowladda u tahay. dadka soo hara waa dadkii dadweynaha caadiga ahaa ee dowladda u shaqaynaysay. dadka xukunka haya hay-addii doonaanba ha ahaadeen, hay-adda fulinta ha ahaadeen, hay-adda baarlamaanka ay shuruucda samaysa ha ahaadeen, hay-adda garsoorka ha ahaadeen. tiro ahaan dee marka la eego waxay noqonayaan tiro yar marka loo eego dadka intiisa kale. dadku markii matalan ay 15 malyan yihiin, inta dowladda ku jirta golayaasheeda intee bay noqon karaan? maaha dad badan marka loo eego dadka intiisa kale, dad badan ma aha. sidaa daraaddeed dadkaas shaqo waxay hayaan la garanayo oo qof kasta uu boos kaga jiro. qof kasta shaqo uu boos kaga jiro ayay hayaan. dadka kale marka waxaa soo hartay iyagu inay qabsadaan shaqooyinkoodii caadiga ahaa. dowladdu ma aha dowlad dadka quudinaysa, ma aha dowlad dadka u shaqaynaysa, ma aha. waxay iyagu u sahlaysaa adeegii dowladnimo ay maaragtay iyadoo waajibka loogu lahaa waa bixinaysaa, sax. nidaamkii guudna waa haysaa. dadkana waxaa laga rabaa marka inay danahooda raacdaan, maaha inay aada ugu mashquulaan. tusaale ahaan dowladda waxaa ka mid ah wasaaradaheeda, wasaaradda warfaafinta ka mid ah. waxay leedahay dowladdu afhayeenay leedahay. dowlad kasta waxay leedahay wasaaradda warfaafin. wasiir warfaafin baa jooga, wasiir ku-xigeen baa jooga, agaasimo guud baa jooga, agaasimo waaxeedyaa jooga, waxaa jooga afhayeen madaxtooyaa jooga, oo afhayeen xukuumadeed baa jooga. xukuumadda afhayeen bay leedahay. haddii hoos loo sii dego gobolladu sidoo kale, dowlad goboleedyadu sidoo kale waxay leeyihiin afhayeenno iyaga dowladda xubinka ah oo shaqo gaaroo la yaqaan qabta. laakiin inagu waxaan shaqadii ku haysanaa dadkii dowladdu ay u xil saaratay inay shaqo u qabtaan. haddii qof hadlo tusaale ahaan mucaarada oo uu wax dhaliilo, iyadoo qof kasta laga rabo anshaxa inuu ilaaliyo, ama mucaarad ha ahaado ama muxaafid ha ahaado. haddii wax dhaliilo afhayeenno cid magacowday aan la garanayn ayaa soo boodaya. waa dadkii caadiga ahaa. qof kasta wuxuu u jawaabayaa qofkii hadlay. oo aawe afhayeenadii dowladda, aawe wasaaraddii warfaafinta, aawe agaasimayaashii, aawe agaasimo waaxeedyadii. dadkii shaqadooda la rabay inay qabsadaan meeyeen? dadkii caadigaaba ka soo horeeya, iyagiiba caytamaya. maantao dhan facebook baa laisugu jawaabayaa, qolba qolay caayaysaa, kuwaba kuwa u jawaabayaan. war shaqadan dad baa iskale, dad baa ku mushaar qaata, dad baa saami ku
maaragtay ku yimid oo beela ay keensadeen ilaan beelaha waxaynu ku qaybsanahay marka dadka shaqadooda in loo daayo ayay dowladnimadu ku qurux badan tahay kuna fiican tahay sababtoo ah iyaga ayaa yaqaan ereyada ay isticmaalayaan markii ay rabaan inay cid la hadlaan dowladdu af bay ku hadashaa afka dowladda ay ku hadashana waa af la yaqaan ereyo la yaqaan bay ku hadashaa ereyo leedahay qofka caadiga ee suuqa jooga iyo qofka dowladda ee ka tirsan xil ka haya isku si uma hadli karaan qofkanna hadduu doono iska caytama waxay ku xirantahay qofkan akhlaaqdiisa edabtiisa ku xiran tahay sida loo soo barbaariyey bay ku xiran tahay waxa uu yaqaan bay ku xiran tahay marka dee qof walbana wuxuu hadlaa waxa ku jira intay leegyihiin laakiin qofka dowladda ay xilkaa u dhiibatay dabcan waa qof lasoo xulay waa qof loo dhiibay shaqo la garanayo shaqadaas ayuu hayaa iyada ayuu afkeeda ku hadlayaa ereyo la yaqaan oo maaragtay shaqadiisaas waafaqsan u qalma ayuu ku hadlayaa ma iska hadli karo qofkaas qof ma aha cid kasta u jawaabi kara maaha qof wax kasta ka jawaabi kara maaha wuxuu ku hadlayaa siyaasadda dowladda arrinta uu ka hadlayo waa arrin uu ku matalayo magaca dowladnimada sidaa daraaddeed haddii shaqada dowladda loo dayn lahaa waxaa dhici lahayd dad badan inay aamusi lahaayeen waxaa dhici lahayd hadallo qurux badan oo dowladdu dhinaceeda ka soo baxayna arki lahayn waxaa dhici lahayd dadka mucaaradka xitaa aad inaysan u xanaaqi lahayn sababtoo ah marka qofku intuu hadlo dad aan la garanayn meelay ka socdaan afkii dowladdana ku hadlaya wax ay xiirinayaanna aysan jirin ay soo yaacaan dee arrintaasi waxaa ka dhalanaya dhibaata ka dhalanaysa akhlaaq xumo ka dhalanaysa cay oo dee waxba aan taraynin sax ma aha cid kasta cayda waa ay ka reebantay diinteenuna waa reebtay in dadka la caayo dhaqanka wanaagsanna ma ku tusanayo cay soomaalidana waxay tidhaahdaa cay dagaalna wax kaagama tarto nabadna waa kaa geysaa wax saasu kala ah sidaa daraaddeed dowladda shaqadeeda ha loo daayo dowladaha iyo maamulada iyaga leh afhayeenno iyaga dad u hadla leh iyaga ayaa garanaya ereyada ku habboon marka ay hadlayaan iyaga garanaya marka ay hadlayaan xilliga ay tahay ayagaa garanaya siyaasadda uga degsan waxa ay ka hadlayaan iyaga ayaa garanaya iyaga ayaa u soo xushay ma garate laakiin shacabkayagow aynu tartiibsanno xilkan siyaadada aynu si saarnay nama saarna wixiina saaran ee waajibna laynagu leeyahay aynu fulin intaa kadib dhaqannadaas kala duwan ee aynu dowladnimadii u isticmaalayno ama u adeegsanayno runtii waxaan isleeyahay dhaqannadaasi ma aha kuwii saxda ahaa ee dowladnimadeena caawinayay dowladnimadeena wax tarayay ma ay aha dhaqannadaasi ma ay aha waxaa la rabaa ereyada xitaa loo isticmaalayo dowladnimadeena ereyada dowladnimada loo isticmaalo xitaa waxaad moodaa ereyo aan ku habboonayn oo marka la eego macnaha ay ku fadhiyaan aan sax ahayn ayaa loo isticmaalaa tusaale ahaan ereyada la isticmaalo waxaa ka mid ah wuu haystaa ninka halkaa haysta reer hebel wasiir hebel bay haystaan guddoomiye hebel waxaa iskale reer hebel agaasime hebel annagaa leh ereyadaas sax ma aha
sax maaha. maqaal aada u qurux badan oo runtii aan aada u jeclahay ayaa waxaa qoray nin aqoon-yahan oo la yidhaahdo cabdiqaadir diiriye. maqaalka waxaa la yidhaahdaa bahal magaalo. waa horu qoray 2000 iyo waxaan u malaynayaa inaan akhriyey 11 mise 10 bay ahayd, ma garanayo, labadaas sano midkood bay ahayd. laakiin mar dambe ayaan haddana helay maqaalkii oo weliba aada loo casriyeeyey. maqaalka waxaa la yidhaahdaa bahal magaalo. wuxuu ka sheekeynayaa habdhaqankeenna dowladnimada, habdhaqankeenna ereyada aynu dowladda u isticmaalo ayuu ka sheekeynayaa. marka maqaalkaasaan raba inaan idinla wadaago. waxa uu leeyahay wiil dhalinyaro ah oo markaa dhigta dugsiga sare ayaa waxa uu ka tegey magaaladii. waxaa la xiray horta iskuulkii u dhiganayay, xilligii fasaxa ayaa la gaaray. kadib waxa uu u baxay miyi ayuu aaday ama baadiye ayuu tegey. sida caadigaa marka iskuullada la xiro magaalooyinka dad badan baa ardada way ka baxaan, tuulooyinka iyo baadiyaha iyo ayaa la aadaa. oo dadka dee baadiyaha iyo maaragtay ku xiran. oday adeerkiisa ayuu baadiye ugu tegay. si fiican baa loo soo dhaweeyey, isaguna aada buu uga helay jawiga iyo barwaaqada. marka xilli barwaaqaana waa ahayd baadiyaha ka jirtay. isaga oo halkiisaa jooga wuxuu joogay 2 bilood meelahaas qiyaastii. baadiyihiisa isagoo jooga ayaa waxaa dhacday wuxuu kala bartay marka dhirtiibuu kala bartay, geedihiibuu kala bartay, xoolihiibuu aadna waa u xiiseynayay, oo xiiso badan buu u hayay. marka waxaa jirtay ariga reerku lahaa orgi ka mida ayuu aada u jeclaa. marka galab ayaa waxaa loo diray ariga inuu soo rogo. marka orgigii oo uu jeclaa ayaa waxa uu arkay iyadoo dawaco ay haysato ku dheganta. marka wuxuu sameeyo garan waayey, wuu soo cararay. waxa uu yimid adeerkiis. markaasuu wuxuu ku yidhi, adeer, orgigii in hebel ahaa waxaa haysa dawaco. u fiirso, waxaa haysata maaha, waxaa haysa dawaco. odaygu uu fahmi way haysaa, ayuu meel u qaado garan waaye. yaa maxaa tiri? markaasuu yidhi dawacaa haysa. odaygii marka wuxuu fahmay in wax si yihiin. xaggee ku haysaa? markaasuu yidhi halkaa geedka hoostiisa beela jiiftaa. odaygu waa soo cararay. neefkii waxaa lagu soo gaaray nolol, dawacadiina waa laga eriyo, waa carartay. marka meeshii waa odaygu neefkii ku gowracay maadaama nolol lagu gaaray. kadibna habeenkii ayaa reerka loo qalay. marka habeenkii markii la cashaynayey ayaa odaygu wuxuu ku yidhi, adeer maxaa galabta tiri? markaasuu yidhi dawacaa haysa. markaasuu wuxuu yidhi, waxaan rabaa inaan kuu kala sheego way haysaa iyo way haysataa. wuxuu yidhi shaygaas qofkaas wuu hayaa haddii la yidhaahdo macnaheedu waxaa weeye waa ammaano, waana loogu imaanayaa, waana wax maaragtay gacantiisaas aamin ku ah oo ama loo dhiibtay ama isagu si kale intay u soo gaareen uu u hayo. qofkaas waa hayaa waxaasi waxaa weeye waa wax uusan lahayn oo u hayo. hadduu leeyahay dee isagaa leh baa la dhahaa. laakiin wuu haystaa waxaa loo isticmaalaa bahalada waxaa loo isticmaalaa buu yidhi
wuu haystaa. sababtaa wuxuu yiri waxaa naga dhexeeya bahladuna dee waxay duulaan ku yihiin xoolaha yaga, annaguna intaan waa ka ceshinaa. marka dagaal baa inoo dhexeeya. haddii marka ay dagnaan ka helaan xoolaha way qabsadaan, kadibna way cunaan. marka wuu haystaa baa la yidhahdaa. bahalku neefkaas wuu haystaa baa la dhahaa, wuu qaatay baa la dhahaa, wuu la tegay baa la dhahaa. waxaasoo dhan waxaa loo isticmaalaa wax sharci darro lagu qaatay, laakiin waxa sharciga lagu hayo wuu hayaa weeye. yarkii ereyadii aad bay ugu duxeen. hilibkii macaanaa ee habeenkii uu cunayay waxaa uga micno batay ereyada wanaagsan ee xikmadaysan ee dhegihiisa ku duxay. maalmo kadib fasaxii waa dhammaaday, waa uu soo laabtay magaaladii iskuul ka dhiganay ayuu yimid. kadib galgalbax ka mida ayaa dhalinyaradii ay isku xaafadda ahaayeen oo ay saaxiibada ahaayeen isugu yimid meel lagu sheekeysanayo oo lagu shaahayo. waxay ka sheekeysanayeen marka dowladnimada ay ka sheekeysanayeen. mid baa marka wuxuu leeyahay wasaaradda heblaayo adeerkay baa haysta. mid kalena wuxuu leeyahay wallaahi wasaaradda heblaayo annagaa haysan jirnayo waana laga qaaday oo reerkii kale ayaa ku soo aaday, marka reerkaasaa loo dhiibay. mid kale wuxuu leeyahay annagu haddii aanan sanadkan booskaas qabsan nooma aha, mana yeelayno. yarkii baadiyaha ka yimid ee soo bartay ereyada haysasho iyo hayn, qabsasho u soo bartay inay tahay wax la qaatay oo la dhacay oo qof uusan sharci ku haysan, ayaa waxa uu ku yiri war idinku ma bahal magaalaatiin? see baad u leedihiin wasaarad hebla annagaa haysana iyo adeerkay baa haysta, maxaa u leedihiin? ma tiraahdaan wasaaradda waxaa haya hebel? sababtaa wasaaraddu waa wax dadka ka dhexeeya, waa wax dowladnimada ee maaragtay dalkeenna matalaya weeye. oo ma tiraahdaan wasaaradda wuu hayaa? sababtoo ah biri waa laga qaadaya. biri marka laga qaado qof kalea loo dhiibayaa. waxaanay ammaanay ku yihiin waa dadkaana wada leh, dalka ayaana loogu shaqaynayaa. saa dhaha, laakiin ha oranina wasaarad hebla annaga haysana. marka wixii buu aad u eegay. waxa uga soo baxday magaalada inay joogaan bahalo. haddii miyigu uu joogay bahal xoolaha cunaya oo qabsanaya, magaalada inay joogaan dad maaragtay wasaaradaha iyo xelalka dowladda qabsanaya. oo islamarkaasna adigu wuxuu ugu daray markii uu uga sheekeynayay bahalada iyo dadka dhaqanka u dhexeeya. waxa uu yiri bahaladu markii ay neef naga qabsadaan, haddii aynu nolol kusoo gaarnay sidan oo kale, neefkii waa ka dhiganaa, bahalkiina wuu cararaa. laakiin hilibkii macaanaa ee uu dhadhamiyey ama dhiiggii u dhadhamiyey ayaa uusan ka quusan karinoo wuu soo qayliyaa, ama intaas waa la celceliyaa. dee waad aragteen habeenkii xoolaha waa la ootaa oo waa la ilaaliyaa oo sidaas oo kale. bahalada waa laga hor joogaa. sidaasoo kale yarkii wuxuu barbar dhigay dhaqanka markii qof xil laga qaado qaylada uu qaylinayo. wasaaraddaas anagaana laga qaaday, xaq baanu leenahay, ma yeelayno, nalaga qaadi kari maayo, waan diiday xilka qaadistii, waxyaaba noocaas. markaasuu wuxuu yiri dadkani waa bahal magaalo. marka gunti iyo gebagabadu waxa weeye dhaqanka aynu ku dhaqanno inta badan, ama dadkeenna inta badan ay ku dhaqmaan, iyo habka aynu dowladnimadu u aragno ma aha sidii saxda ahayd, sidii qumanayd ma aha.
sida casriga ah ee dowladnimadu ay ku socon karta ma aha, waa si khariban oo gadaal inoo celinaysa. dowladda aanu shaqadeeda u dayno, waqtigeeda aynu u dayno, shaqadeeda iyadu ha qabsato. Innaguna aynu dowladnimada taageerno, aynu dowladnimada dhisno, aynu dowladnimadu maaragtay ha inala weynaato. dadku waqti baa la doortay, waqtigooda haddii ay dhammaysteen dib loo doortana way soo laabanayaan. haddii dib aan loo dooran cid kale la doortana way tegayaan. kuwa yimaadana waa sidoo kale, kuwii yimaadana waa sidoo kale, kuwii horena sidaasun bay ahaayeen. cid kasta waqti bay leedahay. dowladnimadu wax soconaya weeye, oo wax inagu filan, oo wax ina deeqa. innaguna dowladnimadu aynu taageerno, iyada waxaana laga rabana aynu maaragtay gudanno. wixii aynu ku leenahayna si sharciya oo quman oo qurux badan aynu u doonano oo dowladda u weydiisanno. waxa aan macnaha lahayna aynu iska dhaafno. kulankan inta aynu kulan lamida isugu imaanayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. muuqaalkan iyo muuqaalada kale ee la midka ah ee aynu duubno, haddii aynu nahay Bahda Ogaal, waxaad dib uga heli kartaan facebooka xarunta Ogaal iyo youtube-ka xarunta oo ah xarunta Ogaal. inta aynu kan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullah.